Let us have examples tusaalooyin aan qaadano oo ka hadlaya direct speech and indirect speech. Change u bedel these sentence jumlooyinkan u bedel inta waxa u bedelaysaa report speech hadalka dadban. Number 1, Asha says, Asha waxay dhahdaa I'm going to school now. Hadda aan iskuulka ayaan u socdaa. I'm going to school now. Hadda waxaan u socdaa iskuulka. Marka kaasi waa direct speech. U bedel report speech wuxuu noqonayaa Asha said that she was going to school then. Waka ayad waxay noqonaysaa waa she ilaan waa Asha magaca. Mar walba iska fiiri. He markuu yahay he says markay noqoto waxay noqonaysaa he. Magac markuu yahay oo gabdheed wuxuu noqonayaa she. Markuu yahay magac nin wuxuu noqonayaa magac wiil waxaa loo qaadanayaa he. Emta waxay isbedelaysaa was, gone ma bedelmayso, school ma bedelmayo. Now waxay u bedelmaysaa markii report speech loo bedelayo then. Waa marka Asha said that Asha waxay dhahday she was going to school then. Number 2, Leila said, Leila waxay dhahday comma my father is a doctor. My father waxay dhahday aabahay is a doctor waa takhtarad ama aabahay waa takhtar. Waxa u bedel report speech. Leila said that waxay dhahday her father aabaheeda was a doctor inuu ahaa takhtar. Leila said that waxay dhahday her father aabaheeda mayd waxay noqonay her ilaa waa magac wax laga hadlayo waa magac gabdho. Her father aabaheeda was wuxuu ahaa a doctor takhtar. Number 3 aan galno. Teacher said macallinku wuxuu dhahay teacher said macallinku wuxuu dhahay the sun is rounding. Qoraxdu way wareegsan tahay. The sun qoraxdu is round way wareegsan tahay. This sentence jumladani may not change isbeddelayso because maxaa yeelay it is universal truth. Waxyaalaha caalamka u rumaysan yahay markay soo gasho landi ama qoraxda ama waxyaalo kale ay soo gasho oo ka hadlaya naturalka waxyaalaha dabiiciga ah markaas ma bedelmaayo. Universal truth ee leedahay waxa loo yaqaanaa universal truth. So we can write waxaan qori karnaa marka teacher said that wuxuu dhahay macallinka the sun is round sida ku soconay wax ma bedelmaayo. The sun qoraxda is round way wareegsantahay qoraxda. Number 4, he says wuxuu dhahaa I am unwell anigu ma fiicni. I am unwell anigu ma fiicni. He said that wuxuu dhahaa he was unwell inuusan fiicnayn. Number 5, he said wuxuu dhahay my teacher macallinkayga is writing wuxuu qoraa letters warqado ayuu qoraa macallinkayga. He said that wuxuu dhahay his teacher macallinkiisa was writing inuu qoraayo letters warqado inuu qoraayo. Waa ka markii mar walba waxay noqonaysaa waxay ku xiran tahay hadba jumlada markii lab ay tahay waxa loo bedelaa waa his like markuu yahay gabdho ama female markuu waxa loo bedelaa her. Hadda waa he said that wuxuu dhahay his teacher macallinkiisa was writing wuxuu qoraayo letters warqado. The woman says naagta waxay dhahdaa I wanted to see waxaan rabaa inaan arko my daughter gabadhayda. The woman said waxay dhahday said that waxay dhahday she wanted waxay rabtay to show inay aragto her daughter gabadhayda. Dhinaca kale isbedelada qaabka roleska wili ee simple presentiga markuu yahay simple present tenniska becomes wuxuu noqonaa wuxuu bedelmaa ee simple past ayuu noqonayaa. A present continuous markuu yahayna becomes wuxuu noqonayaa a past continuous. A present perfect becomes wuxuu noqonayaa past perfect tense. A present perfect continuous kana becomes wuxuu noqonayaa wuxuu bedelmayaa past perfect continuous. A simple past markuu yahayna becomes wuxuu noqonayaa past perfect. A past continuous na change wuxuu bedelmaa to past perfect continuous. A past continuous markuu yahayna change wuxuu bedelmayaa to past perfect continuous. Past perfect continuous na change wuxuu bedelmayaa into past perfect continuous. All future tenniska markuu yahayna will change wuxuu bedelmayaa to would